Wiil yar ayaa asiga oo wax sawiraya waxa u yimid aabihiisa, kadibna wuxuu u weydiiyey waxyaalihii uu sawirayay wax ka mid ah. Wiilkii ayaa u sheegay aabihiisa waxyaalihii uu sawirayay wax ka mid ah. Kadibna aabihii meesha wuxuu ku arkay sawiraantii laba guri, mid yar iyo mid aad u weyn oo ku dhex yaala 3 qol. Wuu weydiiyey aabihii wuxuuna dhahay, gurigan weyn waa maxay? Gurigan yarna waa maxay? Wiilkii ayaa si kadiis wuxuu ku dhahay, aabbo guriga weyn aniga ayaa iska leh, qolalkana carruurteeda ayaa degayso. Aabihii ayaa dhool cadeeyey wuxuuna ku dhahay, insha Allah markii aad weynaato waxaad noqonaysaa injineer. Kadibna wuxuu weydiiyey aabihii gurigii yaraa wuxuu yahay. Wiilkii ayaa ku jawaabay, aabbo gurigan yar adiga ayaa iska leh. Aabihii ayaa si kadiis iskugu naxay. Aabihii ayaa dhahay, maxaa aniga gurigayga uu u yar yahay, kaagina uu u weyn yahay? Wiilkii yaraa ayaa dhahay, adiga guriga awowahayga mid yar ayaad ka dhigtay oo cariiri ah, awowahayga ayaadna dejisay. Adigana markaad weynaato aniga ayaa ku dejin doona. Aabihii ayaa isku naxay, isla daqiiqadii cararay wuxuu u tagay aabihiisa kaleeto, wiilka awowahiisii. Kadibna wuu ka soo bixay gurigii wuxuuna dhex keenay meeshii ay joogeen ciyaalka kaleeto iyo gurigiisa weynaa ayuu soo dhex geliyey. Kadibna cunugii yaraa wuu kacay wuxuuna ka tirtiray sawirkii oo aabihii uu ku qoray, u baari fala waalidiintiina waxaa idin baari falaysaa carruurtiina. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا